assalaamu calaykum. Ma garanaysaa cidda uu yahay Khunzub? Maxay tahay arrinta dhibaatada badan ee uu ku sameeyo muslimiinta? Sideese la isaga difaaci karaa? Dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan waxaan idinkaga jawaabi doonaa muuqaalkan gudihiisa. Daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Sidaan wada ognahayba, bani aadamku wuxuu leeyahay cadow lagu magacaabo shaytaan. Isaga ayaana asal u ah sharta iyo dhammaan waxyaabaha xunxun ee ka dhaca caalamka. Shayaadiintuna waxay u kala baxaan dhowr qaybood. Qayb walbana waxay u qaabilsan tahay howlo gaar ah. Midka aan hadda ka sheekaynayno waa shaytaanka salaada. Wuxuu u qaabilsan yahay in uu salaadaha ka fasahaadiyo muslimiinta. Wuxuuna ka shaqeeyaa in uu khushuuca kaaga hor istaago oo uu ka dayaco salaadaada. Wuxuu shaytaankan marka aad salaada ku jirto qalbigaaga geliyaa arrimo fara badan oo ku saabsan arrimaha adduunyada. Markaas baad ku mashquulaysaa oo aad salaada dhexdeeda ku noqonaysaa mid maqane jooge ah. Wax khushuuc iyo khuduuc ah ma lahaanayso salaadaada. Waxaadna ku soo toosaysaa markii la gaaro salaamo naqsiga. Aan ka digtoonaanno oo aan la imaanno taxaddar aad u fara badan markii aan hor taagannahay Rabbigeena subxaanahu wa tacaala, si aan isaga ilaalinno cadowgan u soo dhigtay in uu naga fasahaadiyo salaadaheena. Ogowna in aad hor taagan tahay oo aad la hadlayso oo aad weynaynayso oo aad rajaynayso Rabbigaaga naxariistiisa, oo sidoo kale aad ka baqayso cadaabkiisa subxaanahu wa tacaala. Allena subxaanahu wa tacaala waa uu oga digay mu'miniinta. Wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala: inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan wakafaa birabbika wakiila. yaa Ibliis, addoommadayda mu'miniinta ah ee mukhlisiinta ah ee i ateeca, wax awood ah kuma lihid. Nebi Muxammadow, Rabbigaaga ayaa muslimiinta ilaalin iyo xifaadin ooga filan shaytaanka dhagartiisa. Markaad xusto Rabbigaagana waa uu kaa fogaan doonaa oo kaa carari doonaa cadowga Alle subxaanahu wa tacaala. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال رضي الله عنه: ففعلت ذلك فذهبه الله عني. waxaa Anas bin Malik Allaha ka raali noqday laga wariyay in saxaabi lagu magacaabo Cusmaan bin Abil Caas rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam uu u yimid, kadibna uu ku yidhi: rasuulkii Ilaahayow, shaytaanku wuxuu ina soo kala dhex galaa aniga iyo salaadayda. Qur'aan akhriskaygana waa uu iga soo dhex galaa. Markaas buu rasuulku calayhi salaatu wassalaam ku yidhi: kaasi waa shaytaan lagu magacaabo Khunzub. Haddaad dareento, ka acuudu billayso oo dheh acuudu billaahi min ashaytaani arrajiim. 3 jeerna u tuf dhankaaga bidix. Kadibna wuxuu yidhi saxaabigan Allaha ka raali noqdee: waan sameeyey siduu rasuulku sallallahu calayhi wasallam igu amray.
kadibna alle waa uu iga tagsiiyey subxaanahu wa tacaala. allena subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa dhexdiisa ku yidhi: inna ashaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwa innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi asaciir. shaytaanku waa cadowgiina ee cadow ka dhigta oo iska ilaaliya. waxa keliya ee uu xisbigiisa ama dadka raacay uu ugu yeerayo ayaa waxay tahay in ay ka mid noqdaan kuwa la geli doona naarta la yidhaahdo saciira. haddii uu addoonku alle subxaanahu wa tacaala isaga magan galo oo uu shaydaanka ka acuudu billaysto oo 3 jeerna uu dhankiisa bidix u tufo, wax dhib ah kuma sugna, kamana jabayso salaadiisa, bal waxay arrintaasi ka mid tahay salaada dhammaystirnaanteeda. tufidduna ma ahan tufid la tufayo candhuuf waaweyn, waa uun tufid ay la socdaan dhibco yaryar oo candhuufta ka mid ah. waxaa qofka mu'minka ah looga baahan yahay inuu salaadiisa guto isagoo la imaanaya khushuuc iyo khuduuc iyo qalbi xaadir ah iyo weliba degganaanta, si salaadiisu ay u noqoto mid uu ka helo ajir badan. qofku waa in uu eegaa macaanka iyo dhadhanka ay leedahay la hadlidda alle subxaanahu wa tacaala iyo hor istaaggiisa. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aanka dhexdiisa ku yidhi: qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. waxaa dhab ahaantii liibaanay mu'miniinta kuwaasoo ku khushuuca salaadooda dhexdooda. wuxuu yidhi sheekhan lagu magacaabo Cuthaymiin raximahullah: qof baa wuxuu isweydiin karaa, haddii qofku uu jameeco ku dhex jiro sidee buu ugu tufi karaa bidixdiisa? wuxuu yidhi, haddii qofku uu yahay qofka ugu dambeeya ee safka dhankiisa bidix uga tukanaya, way u suurtagelaysaa in uu ku tufo dhankiisa bidix, waa haddii uusan ku jirin masaajidka. haddii kalena isagoo bidixdiisa u tufaya ha ku tufo istiraashadiisa. haddii taasna aysan suuragalaynin, waxaa ku filan inuu dhankiisa bidix milicsado oo uu yidhaahdo: acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim. فاللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلوات الناجين من النيران الساكنين في الجنان يا رب العالمين. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.